Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaashayda sharafta leh ee ku xiran janalkayga. Waxaa nabigeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam dacwada iyo faafinta diinta islaamka loogu dhibaateeyey si aanan loogu dhibaataynin axad kale. Waxaa nabiga salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi loo geystay dhibaatooyin aad u waaweyn. Waxaa la colowtamay qowmkiisa iyo raggii ugu waaweynaa qabiilkiisa iyo weliba saaxiibadiisa, balse intaas oo idil waxaa oga sii darnaa in ay la colowtameen ahalkiisa, gaar ahaana adeerkiisa Abulahab, kaasoo ahaa qofkii ugu dhibaatada badnaa nabiga salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh. balse muxuu Abulahab intaas oo dhibaatooyin ah ugu geystay nabiga sallallahu calayhi wasallam? Maxaa u sabab ahaa nacaybka uu u qabay nabiga? Qisadii xaaskiisuna maxay ahayd? Maxayse nabiga ku samaysay ilaa uu Alle subxaanahu wa tacaala ka soo dejiyey suurad dhan oo qur-aanka ka mid ah oo uu ku lacnadayay? Waxaan muuqaalkan gudihiisa idinkaga jawaabi doonaa dhammaan su'aalahaas iyo kuwo kaloo badan. Daawasho wacan. balse ka hor inta aanan bilaabin, haddii aad nagu cusub tahay fadlan ha iloobin janalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiira geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Abulahab lacanahullaah waxaa la odhan jiray Cabdulcuza binu Cabdulmutalib. Wuxuu adeer u ahaa rasuulkeena Muxamed calayhi salaatu wassalaam, wuxuuna walaal la ahaa nabiga aabbihiisa. Magaca uu ku caanbaxayna wuxuu ahaa Abulahab, waxaana magacan u bixiyey aabbihiisa Cabdulmutalib oo nabigana awow u ahaa, wuxuuna ugu bixiyey soo jiidashadiisa iyo caddaantii wejigiisa awgii. Waxaa la sheegaa maalinkii uu dhashay nabiga sallallahu calayhi wasallam in Abulahab ay u timid gabar jaariyadiisa ahayd oo la odhan jiray Thuwayba, kadibna ay ugu bishaaraysay in wiil uu u dhashay walaalkiisa. Farxad uu ku farxay awgeed ayuu Abulahab jaariyadiisa uga xoreeyey addoonnimada. Sidoo kale, Abujahal wuxuu ahaa qofkii ugu hor cadaystay cadowtinimada uu u qabo nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo islaamka, wuxuuna dadka u horseeday inay la colowtamaan oo ay beeniyaan nabiga sallallahu calayhi wasallam. Wuxuu samayn jiray qaab walba oo uu ku dhibaatayn karo nabiga sallallahu calayhi wasallam, wuxuuna madaxdii Quraysh u qaban jiray shirar iyo kulamo ay uga soo horjeedaan nabiga sallallahu calayhi wasallam. Waxayna maleegi jireen dhagarro iyo shirqoollo ay doonayeen inay kaga takhallusaan nabiga salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh. Mar walba oo uu arko nabiga sallallahu calayhi wasallam isagoo dadka ugu yeeraya islaamka, wuxuu Abujahal istaagi jiray nabiga gadaashiisa, wuxuuna isagoo farta ku fiiqaya odhan jiray, kani waa nin beenlow ah ee ha rumaynina. Nacaybka uu u qabay islaamka iyo xadgudubkiisa iyo isla weynidiisa awgii, waxay dadku qarsan jireen islaamnimadooda iyagoo dhibkiisa ka baqayay. Maalinkii dagaalkii Badar, Abulahab ma uusan awoodin in uu u soo baxo dagaalka si uu ula soo dagaalamo muslimiinta. Markaas buu dareemay in arrintaasi ay ku tahay ceeb iyo sharaf xumo. Kadibna 4,000 oo dirham ayuu wuxuu siiyey nin la odhan jiray Caas binu Hishaam si uu ciidanka u raaco oo uu u dagaalgalo beddelkiisa. Lacagtaasna xilligaas waxay ahayd mid u dhiganta kayd dhan ama lacag aad u fara badan. Haddaan u imaanno Abilahab xaaskiisa, waxay ahayd gabar uu dhalay mid ka mid ah madaxdii ama hogaamiyaashii Quraysh, waxayna ninkeeda ugu garabsiin jirtay dhibaatadii uu u geysan jiray nabigeena Muxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh. Iskaba daaye, waxay ninkeeda ku dhiiragelin jirtay in uu dhibaateeyo nabiga sallallahu calayhi wasallam. Waxay fiirsan jirtay waddada inta badan ay soo maraan nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo asxaabtiisa radiyallahu tacaala canhum wa ardaah. Waxayna u fadhiisan jirtay waddada iyadoo sugaysa inta ay ka soo marayaan, kadibna waxay waddada ugu daadin jirtay qodxo iyo dhimbilo dab ah. Waxayna sidoo kale qodxo iyo qashin ku hor daadin jirtay gurigii nabiga sallallahu calayhi wasallam. Waxayna sidoo kale mar walba oo ay aragto cayn jirtay nabiga sallallahu calayhi wasallam.
sidaas darteeda ayuu alle subxaanahu wa tacaala qur-aanka ugu magacaabay xamaalata alxatab, ama tii xaabada xambaarsanayd ama xaabada wadatay. wuxuuna alle subxaanahu wa tacaala yidhi: wamra'atuhu xamaalata alxatab fii jiidihaa xablun min masad. qowlka eebe ee ahaa fii jiidihaa xablun min masad waxaa loola jeedaa waxay haweenaydaani lahaan jirtay xarig ama katiinad ka samaysnayd dahab oo ay ku xiran jirtay qoorteeda. kadibna waxay ku dhaaratay in ay gadi doonto katiinadeeda, oo kadibna ay lacagteeda ku bixin doonto dhibaataynta iyo waxyeelaynta nebi muxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh. sidaas darteed buu alle subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay inuu qoorta u gelin doono xarig ka samaysan masad ama naar, kaasoo loogu bedeli doono xariggeedii dahabka ahaa. qisooyinka kale ee laga wariyey abiilahab xaaskiisa kuwa ugu caansanaa waxaa ka mid ah in maalin maalmaha ka mid ah ay soo baxday iyadoo aad u caraysan ama aad ugu caraysan nebiga sala allahu calayhi wasalam, waxayna xilligaas ka carootay soo degistii suuratulmasad oo soo degtay xilligaas, waxayna gacanta ku soo qaadatay dhagax ama shiid aad u weyn. kadibna waxay u jihaysatay nebiga sala allahu calayhi wasalama dhankiisa, wuxuuna nebiga sala allahu calayhi wasalam xilligaas kacbada agteeda la fadhiyey saaxiibkiisa abibakar, allaha ka raali noqdee. markaas bay gacanta kor u qaaday si ay dhagaxii oogu dhufato nebiga sala allahu calayhi wasalam. markaas buu alle subxaanahu wa tacaala araggeeda ka indhasaabay oo arki weyday. markaas bay abibakar ku tidhi: aaway saaxiibkaaga? waxaa isoo gaartay inuu wax iga sheegay ama i caayay. wallaahi haddaan arki lahaa dhagaxan ayaan ku dhufan lahaa. kadibna waa ay iska laabatay. markaas buu abubakar nebiga ku yidhi: yaa rasuulallah, miyaysan kuu jeedin? markaas buu nebiga sala allahu calayhi wasalama ku yidhi: maya, alle ayaa araggeeda iga indhasaabay. abiilahab wuxuu dhalay 6 carruur ah, waxaana ka islaamtay 2 qof oo keliya oo islaamtay maalinkii la furanayay makatal mukarama. balse arrinta la yaabka leh ee inta badan muslimiintu aysan ogeyn ayaa waxay tahay islaamka ka hor in 2 ka mid ah gabdhihii nebiga sala allahu calayhi wasalama ay qabeen 2 wiil oo uu dhalay abiilahab. ruqiya, allaha ka raali noqdee, waxaa qabay cutbah binu abiilahab. umukaltuumna waxaa qabay walaalkiisa cutayba. markii ay soo degtay suuratulmasad ayuu abulahab wiilashiisa ku amray in ay wada furaan 2dii gabdhood ee nebiga sala allahu calayhi wasalam, isagoo doonayay inuu ooga aarguto. markaas buu wiilkiisa cutayba yidhi: waxaan u tagayaa muxamed, waana soo dhibayaa. markaas buu u tagay nebiga sala allahu calayhi wasalama oo ku yidhi: yaa muxamed, innii kaafirun binnajmi idaa hawaa wabiladii danaa fatadallaa. kadibna intuu nebiga hortiisa ku candhuufay ayuu furay gabadhiisa umukaltuum radia allaahu canha. markaas buu nebiga sala allahu calayhi wasalam aad uga carooday oo aadna uga murgay. kadibna waa uu habaaray, wuxuuna ku yidhi: allaahumma sallit calayhi kalban min kilaabik, ilaahayow ey ka mid ah eeyahaaga ku sallid. intaas kadib abulahab ayaa u baxay shaam, isagoo cutaybana uu la socday. kadibna waxay habeen degeen meel u dhow mowlac uu lahaa nin raahib ah. markaas buu ninkaasi ku yidhi: iska jira, halkan waa meel aad u dugaag badan. markaas buu abulahab saaxiibadiisa ama safaraydii la socotay ku yidhi: qurayshay, caawa waxaan idinkaga baahanahay gargaar ee ii gargaara. anigu waxaan aad ugu baqayaa wiilkayga cutayba inuu ku dhaco habaarkii muxamed. markaas bay raggii quraysheed ee la socday hal meel isugu geeyeen alaabtooda. kadibna waxay cutayba u gogleen dhexdooda, iyaguna waxay jiifteen hareerihiisa.
iyagoo isku wareejiyey si ay u waardiyeeyaan. kadibna markii ay jiifteen ayaa waxaa u yimid libaax, markaasbuu wuxuu ka wada ursaday wejiyadooda ilaa uu ka soo gaaray Cutayba. markaas buu korkiisa soo istaagay oo hal mar ku dhuftay dhirbaaxo aad u xoog badan oo Cutayba halkaas ku halaagtay. ereyga keliya ee Cutayba laga maqlay wuxuu ahaa wuu i dilay, isla markiina halkaas ayuu ku nafbaxay Cutayba. sidaas ayuuna ku dhaboobay habaarkii rasuulka salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh. haddaan u imaanno dhimashadii abiilahab, waxay ahayd geeri ku cibro qaadasho u ahayd dhammaan bani aadamka ilaa iyo qiyaamaha. wuxuu alle subxaanahu wa tacaala ku ciqaabay adduunyada ka hor inta uusan ku ciqaabin aakhirada. waxaa abiilahab ku dhacay dhibaato iyo xanuun xagga dhimirka ah, taasoo ay u sabab ahayd murugada iyo istareyska iyo naxdinta uu ka qaaday guushii uu alle subxaanahu wa tacaala muslimiinta siiyey maalinkii dagaalka Badar. kadibna wuxuu alle subxaanahu wa tacaala ku salliday xanuun aad u daran oo loo yaqaanay maradul cadasa, wuxuuna jirkiisa isku beddelay nabro waaweyn oo ku fiday dhammaan jirkiisa. wuxuuna ahaa cudur dadku ay aad uga carari jireen dhibaatadiisa awgii. qofkii uu ku dhacana waxay ula dhaqmi jireen sida qof uu ku dhacay daacuunka oo kale. wayna ka carari jireen iyagoo ka baqaya inuu cudurku u gudbo. xitaa awlaaddiisa waa ay ka haajireen oo waa ay ka fogaadeen iyaga oo ka baqayay cudurka. markii uu dhintay kadibna 3 maalmood cidna uma aysan dhowaanin ilaa uu ka uray oo urkiisa uu dadka meeshooda ugu tagay, oo sidoo kale aboorku uu bilaabay in uu cuno jirkiisa. markaas bay u qodeen god si ay ugu duugaan, kadibna waxay ku qaadeen xargo ilaa ay ku rideen godka. kadibna intay meel fog ka istaageen ayay dhagaxaan ku gureen ilaa ay ka qariyeen. tanina waa abaalka uu leeyahay qof walba oo dulmi badan oo dadka dulmiya. waxaan filayaa inaad ka wada faa'iidaysateen muuqaalkan. haddii aad ka faa'iidaysatay fadlan ha iloobin inaad like saarto oo aad u sii sheer garayso asxaabtaada. haddii aad nagu cusub tahayna fadlan ha iloobin janalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiiro geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. hana iloobina inaad aragtiyadiina noogu reebtaan qaybta hoose ee commentiska. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.